Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran janaalka Hagardiid Tube. Guud ahaan salaan ayaan hawada idiin soo marinayaa meel walbood joogtaan. Salaan kadib, maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeennii shanaad. Cashirkaasoo ah cashir aad iyo aad u xiiso badan, sidoo kale ahna cashir waana ah. Waanadaasoo ku socota ardayda. Qof walbo ardaya oo cashirkan qaatana waa rajeynaa inuu wax badan ka faa'iidi doono uuna ku dhaqmi doono. balse intaanan cashirka u guda gelin waxaa idin xasuusinayaa inaad janaalka subscribe inoo saartaan, sidoo kale like iyo share si ay asxaabtu uga faa'iideystaan. Waxaa kaloon idin wadaa oraahdii ama xigmadii aad iga barateen, taasoo ah oraah aad iyo aad u qiimo badan idne, xigmad aad u wanaagsan ah. balse mar labaad waxaan ku xasuusinayaa intaan cashirka u guda gelin inaad janaalka subscribe inaad inoo saarto haddii aad ilowday, iyo like sidoo kalena aad share garayso si ay asxaabtu uga faa'iideystaan. Haddana waxaan guda galaynaa cashirkeenii, halkan ayuu inooga bilaabanayaa. Okay, haddii aan cashirkeena kusii socono. If you want to become a successful student, you must read your lessons, because if you read your lessons, your knowledge will be better and you will reach your goals quickly. But if you neglect reading your lessons, you will be a dull student and you will fail to attain your goals or your goal. So I am exhorting all my classmates to read their lessons. Haddii aan Soomaali u bedelno, if you want to become, haddii aad doonaysid inaad noqotid a successful student, arday horumaray ama arday hormaray, you must read, waxaa kugu waajib ah inaad akhriso your lessons, cashiradaada. Because maxaa yeelay, if you read your lessons, haddii aad akhrisid cashiradaada, your knowledge, aqoontaada, will be better, way wanaagsanaan doontaa, and you will reach, waxaadna gaari doontaa your goals quickly, hadafkaaga ayaad si dhaqsi leh ku gaari doontaa. But laakiin, if you neglect reading your lessons, haddii aadan akhrin cashiradaada ama aad iska ignore garayso ama aad is iloosiiso ama aad iska dayso oo aadan akhrin cashiradaada, you will be a dull student, waxaad noqon doontaa arday damiin ah. And you will fail, waxaadna ku dhici doontaa to attain, inaad gaarto ama aad haleesho your goal, hadafkaaga. Yacni haddii aadan cashirka aadan akhrin, waxaad noqon doontaa arday damiin ah, mana gaari doontid hadafka aad leedahay. So marka I am exhorting, waxaan ku dhiirigelinayaa all my classmates. Classmates waxaa la dhahaa ardayda aad isku galaas tihiin. Waxaad u bedeli kartaa haddii aad doonayso all my schoolmates, ardayda aan isku iskuulka nahay, to read, inay iska akhriyaan their lessons, cashiradooda. Waana cashir, waanadaasoo ku socota ardayda iskuulka dhigata dhammaan. So cashirkeena maanta intaan ayaan ka dhiganaynaa.
intaan ayuuna inoogu egyahay. Waxaan ku xigsanaynaa ama aan qaadanaynaa oraahdeennii aan wada sugaynay, oraahdii qiimaha badneed. balse intaan oraahda u guda gelin, mar labaad waxaan kaa codsanayaa inaad janaalka subscribe noo saarto, iyo like, sidoo kale aadna share garayso si ay asxaabtu uga faa'iidaystaan. Oraahdeenana waxayna leedahay sida tan. Okay, oraahdeena waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Don't depend too much on anyone. Everyone will change when they meet new people. Don't depend too much on anyone. Cidna saa'id ha ugu xirnaan ama ha ugu tiirsanaan. Everyone, qof walba, will change, wuu isbedeli doonaa when they meet new people, marka ay la kulmaan dad cusub. Oraahda waxaan ka fahmaynaa inayna leedahay cidna noloshaada ha ku xirin, cidna saa'id ha ugu tiirsanaan, maxaa yeelay qof walba markii uu qof cusub ama dad cusub la kulma wuu isbedeli doonaa. Don't depend too much, saa'id ha ugu tiirsanaan, on anyone, qof walba. Everyone will change when they meet new people. Qof walba wuu isbedeli doonaa markii uu la kulmo dad cusub. Oraahdeenana intaan ayaan kusoo koobnay. Tani iyo cashirka xiga, sidaa iyo nabadgelyo. Guud ahaan dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Hagardiid Tube meel walba joogtaan, sidaa iyo nabadgelyo.